yaali wax garad muddo toddobaad u joogay magaalada Muqdisho siideenta wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan oo maanta dib ugu laabtay gobolka Gedo gaar ahaan degmada Doolow waxa ay sheegeen in natiijo ay ka soo bixi waayeen wada hadalkooda ay ka doonayeen siideenta wasiirka waxa ay sheegeen in madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la dhaqmay sida warka u dhigeen si baalmarsan dhaqanka waxay xuseen odayaashan oo ka kala tagay degmooyinka Luuq Doolow iyo Beled Xaabo oo maanta dib ugu laabtay gobolkaasi Gedo inaan loo baahnayn in dowladda federaalka Soomaaliya ay sii haysato wasiir Janan oo ka tirsan maamulka Jubbaland gaan ahayn waxaan islahayn madaxweynaha jamhuuriyadda naftiisa haddii la qabsado odayaashiisii baa tiin oo dadka haysta waa dhigi kartaan war maxaad ku haysataan sidaas aan u aadnay kumana soo guulaysanin haddee mana rabno sidaa wax u aragnay inaan wax u qufno madaxweynaha Soomaaliya waan la kulannay safar dheer baan u galnay waan la kulannay ergadii nagama qaadan inuu naga qaatan ma suurtagelin anagoo og oo arkayno wasiirka amniga in si xaqdari ah baadil lagu haysto aan ahayn xarigiisi xaqdari inuu yahay aan arkayno إن شاء الله تعالى هتنمي يدتن كبوري قبل كجذا إن إسكتلنا. أرجع أسأل كم أنا قولي سنين كم أنا سو قولي سنين أكسر نقولنا أنا لو كان يتشق أرجع يدحم وهي أنا ميسان كأنا لهين يا علاس كأنا لهين يا علاس كأنا بورين أنا لو كتب جمعينه أدان مدحوين هي قرن كأن ساس وقتهني ساسان متقانا وسو قدوني وانا كسو دريسناي ارغدا يدي واسو مدحونا نوع عديي وسير مسن دنبلا اهين فكر كاسنا كل لكن لا هيو خوغ يا اود لو هاي تاسنا كل waxyaalaha anagu aad iyo aad aan awal u dareemeynay walaalayaal aad iyo aad baad mahadsantiin soo dhaweyn wanaagsan laga diiday ergadanadi adduunkana lama arag erga la diido ama madaxweynaha ahaada ama dhaqan ha ahaada ergawa ku dhacdo waliba sidii la rabay noo lama xushmeeyna hadaan runta ka hadalno marka waxaan leenahay kulay arintaas waan ku soo guul dareysanay mar labaad baaq waxaan ugu direynaa madaxweynaha maadaama kafoolkiiba aan wax uga soo weynay laakiin qofkaada lagama rajabeelo ama dadkaada ama madaxweynaha ama qofkaada lagama rajabeelo mar labaad waxaan baaq u direynaa annagoo hadda gobolkii ku noqonay inuu wasiirka sii daayo wal wali akhyar tari isma agleyn qabti waluna hal kolomni uurta magalaan laakiin ma guuleysan ha gudoomi mana ka daba hiri doon hak mana ka daba gali doon waliba markuu isnaa roog sidii oo kahi kista fadhiga ka daaynuun ama la sii maqanya asarni soo istaaganaynaa la sii qabadee hore bee walba taraad yaala madaxweyne waxaan dhahnay inaan noo sii daysa Cabdirashiid Xasan Cabdinuur sidaa daraaddeed waan ku dooranay shalay odayaashaadii baan nahay sidii aan kuu dooranay kugu anbalyaynay lixjacladii aan kuu qabnay adoon imaanin weli gobolka Gedo oon ku sugaynay haddana ninkii noo dhaqaaqaya inaad naga qabato waan ka tagay wixii aan dhahnay iyo wixii aan marnay ma koobi karno annagoo intaas marnay ergada ayada ay ku guuldareysanay dhawaan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa garoonka Muqdisho ku xirtay wasiirka amniga maamulka Jubbaland xilli oo ku sii jeeday magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia